kulankan ujeedkiisu ahaa sidii hay'adda IOM ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul gobolka Banaadir isaga kaashan lahaayeen horumarinta caasimadda iyo sidoo kale arrimaha la xiriira maareynta dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Muqdisho oo qiyaastii ay kor u dhaafeen in ka badan 500,000 sidoo kale waxa uu maamul gobolka Banaadir iyo hay'adda IOM ka wada hadleen shaqo abuurka dhalinyarada iyo horumarada kala duwan ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. kulankani waxa isugu yimid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriso iyo sidoo kale madaxa hay'adda IOM u fadhiisa Soomaaliya Mrs Diana Epstein. kulanka markuu soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Injineeriso oo sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac. waxaan ku ballanay in xiriirkii wada shaqeynta la hagaajiyo ayagana waxay ballan qaadeen in ay ku dadaali doonaan si kasto ay u caawin karaan dadkan ka soo noqda dibadaha siiba dhalinyarada iyo arrimahan ay ka shaqeeyaan oo gargaarka bini'aadanimo ah iyo sidii xal waara loogu heli lahaa soo kabashada iyo arrimahan migrationka ama socdaalka. waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii barakacyaasha dalka wax loogu qaban lahaa oo loogu heli lahaa xal waara. waxaan kaloo ka hadalnay sidii Soomaalida dhalinyarada shaqo abuur loogu abuuri lahaa. waxaan isla garanay in IOM gobolka Banaadir wada shaqeyntoodii ay muhiim tahay. waxaan uga mahadcelinaa mar kale iyada iyo shaqaalaha IOM oo dhan oo shaqaale Soomaalina ku jiraan sida ay dalkan uga wada shaqeynayaan sidii dib ugu soo kaban lahaa. dhinaca kale madaxa hay'adda IOM u fadhiisa Soomaaliya Mrs Diana Epstein ayaa dhankeeda waxa ay tilmaantay in hay'adda IOM ay diyaar u tahay horumarinta Soomaaliya gaar ahaan mashaariicda kala duwan ee laga fulinaya magaalada Muqdisho. I'm very happy to be here. We just had a meeting with the mayor of Mogadishu on. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinla joogo. kulan ayaan la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir kaasi oo ku saabsan arrimaha shaqooyinka ay qabato hay'adda IMO ee caawinta dadka danyarta ku dhaqan magaalada Muqdisho. ilaa 3 qodob ayaanu diiradda ku saarnay kulanka IMO iyo duqa magaalada Muqdisho dhexmaray. kow arrimaha gargaarka degdega ah bini'aadanimo ee loo sameeyo dadka barakacyaasha. tan labaad in xal waara loo helo dib u soo kabashada caasimadda iyo taageerada howlaha muhiimka u ah bulshada oo waqti dheer ah iyadoo la fiirinayo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin. midda saddexaad aan ka wada hadalnay waxa ay tahay sidii loo caawin lahaa dadka dalka dib ugu soo laabanaya iyo doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaaliyeed. hay'adaha dawladda Soomaaliya iyo IMO anaka diyaar ayaan u nahay sidii aan kaalinteena uga qaadan lahayn arrimahaas. And I look forward to Nur Saciid, TV magaalada Muqdisho.